كتب التواريخ waxay sheegayaan nin adoona ayaa saylada la keenay doona nin baa la yaabay sida uu jaban yahay qiimihiisu uu jaban yahay wuxuu qiimaha adoonku saylada kama joogo xoogiisa iyo caafimaadkiisa iyo nooca uu yahay waxyaabo badan baa lagu qiimeynay sida xoolaha hadaynu u qiimeeyno ayaa lagu qiimeynay qiimihii adoonkaasi suuqa ka joogay qiimahan ahayn baa ninkii laha ku baayacay doona nin baa la yaabay oo ila adoonkan qiimaha inta la suuqa kama joogo maxaa jira wuxuu ceeb buulay marka ceebtaas keenaysa inaan hoos u dhigo ceebtiisu waa maxay waa namiimiye dadka ayuu isku dara waa wax sahlan buu sidii ku qaat markuu dhowr maalmood la joogay ayuu islaantii u tagay oday waan isku fiicanahay oo gabadh bay heshiiyeen oo doonaya inuu guursado adigana waa ka sii jeeda hadda doonaysa inuu ku soo jeesto waa ku sixraya timihiisa markuu sixray soo go waliba mindida noocaas ku soo go odagiina waa la ballamo waxa uu markaa seexatay islaantii nin bay la heshiiso digtoonow wadarki doonta iyadoo mindi kula soo galayso qoortaada ku socoto ayaad arki doontaa ninkii maalintii dambe islaantii isu seexi iyadoo mindidii la ordayso isoo si fiican buu seexda ka goosatimihi ayuu soo gashay intuu ku booday oo mindidii intuu ka qaaday buu yadii galay halkii buu ku dilay inta isku maqnaayeen ayuu u sii tagay gabadha qoladeedii oo inantiini ninkii qabay baa dilay ka gaadhay waxay ugu dul yimaadeen isagoo gabadhii dul taaganay may tahay isla mindidii ka qaadan halkii bay ku dileen intii ninkii la dilay qoladii kalena u tii oo ninkii waa la dilay dagaal laba beelood oo meeshii ka dhacay laba beelood waxayna ka bilaabantay ceebtii loo sheegay ee la yiri ninkaas waa namiimiye dadku isku dira iska ilaali ma taada